haye asxaabta maanta waxaan dib ugu laabanaynaa dunidii madoobeyd ee Sweet Home. sheekadu halkay noo maraysay militarigii afgambiga sameeyey waxay burburiyeen saldhiggii bamdo iyagoo gumaaday dadkii isbedelayaasha ahaa. dadkii badbaaday waxay hadda ku nool yihiin dhulka hoostiisa iyagoo u haysta in xeradaas ay tahay meel ammaan ah, laakiin dhab ahaantii waa xabsi dhiig ku daatay. geesigayagii Hiyansu wuxuu weli ku dhex godoonsan yahay qolka tijaabada isagoo u bedelmay taalo dhagax ah oo aan dhaqdhaqaaq lahayn kadib markii uu kiligo ka adkaaday. laakiin xaaladda xerada waxaa khalkhal geliyey soo muuqashada gabadh yar oo dahsoon oo aan u bixinay Silofa. gabadhan maahan mid caadi ah, waxay leedahay awood ay ku taabato bini'aadamka markaasna ay ku kaxayso damacooda gudaha ilaa ay u bedelmo bahalo indhahoodu caddaan yihiin. indho caddaan, taasi waa calaamadda dadka ay iyadu maamusho. Silofa waxay u muuqataa mid aamusan oo aan dadka dhibin, laakiin gudaha ayay madow ka tahay. si lama filaan ah xaaladdu way xumaatay. mid ka mid ah bahaladii bannaanka joogay ayaa ku istaagay miino u dhow xerada. dhawaaqii qaraxa wuxuu soo jiitay kumanaan bahalo ah oo ka soo yaacay 10 mayl oo wareeg ah. militarigii xerada joogay ee uu hogaaminayay Barilayn ma haystaan hub ku filan oo ay bahaladan isaga difaacaan. kooxdii raadraadinta ee Yudogo waxay u jiraan 15 daqiiqo, laakiin bahaladu waxay xerada ku soo dhow yihiin ilbiriqsiyo gudahood. halkan waxaa ka soo baxay geesinimada iyo waalida sarkaalka adag ee Yudogo. isagoo gaari ku dhex jira ayuu go'aansaday inuu sameeyo qorshe halis ah. wuxuu rabaa inuu qarax weyn ka dhex kiciyo kaalin shidaal oo aad u fog si bahaladu ay dhawaaqaas ugu weecdaan. laakiin dhibka jira ayaa ah in bahaladu ay khalkhal geliyaan mawjadaha korontada, taas oo ka dhigan in qaraxa fog aan meel fog laga kicin karin. Yudogo wuxuu la soo baxay qorigiisii dheera, wuxuu neefta isku celiyey sidii nin wax toogashada ku takhasusay, wuxuuna hal xabad ku dhuftay haamihii shidaalka ee kaalinta. qarax weyn oo cirka isku shareeray ayaa ka dhacay meeshii. bahaladii oo dhan ayaa u weecday dhanka dabka iyo dhawaaqaas weyn, waxaana badbaaday xeradii barakacayaasha. intii ay dib u soo laabanayeen waxay jidka ka soo heleen wiilkii miskiinka ahaa ee Aday. laakiin ma oga in Aday ay taabatay gabadha indhaha cad ee Silofa, uuna hadda yahay miino qarxi doonta waqti dhow. markii ay xerada ku soo laabteen waxaa dhacay iska hor imaad u dhexeeya labada hogaamiye ee militariga. Yudogo ayaa feed ku bilaabay askarigii naxariista badnaa ee Hawshan Liang isagoo ku eedeynaya inuu dad bahalo ah xerada soo geliyey. dhanka kale dhakhtarkii waalnaa ee Dasami ayaa xerada dhexdeeda laga helay isagoo dhuumanaya. Barilayn ayaa u ogolaaday inuu saldhig yar ka dhex samaysto xerada maadaama uu yahay qofka kaliya ee wax ka yaqaana habaarun. dhakhtar Dasami wuxuu qabaa aragti cusub, habaarku maahan cudur jidheed, waa cudur maskaxeed. damaca qofka ayaa u bedela bahal. haddii aan maskaxda daaweyno jidhku dib ayuu u soo laabanayaa. laakiin dhibka jira ayaa ah in xerada dhexdeeda uu ka bilaabmay dareen cabsi iyo argagax leh. markii ay cabsidu kor u kacdo habaarku wuxuu u fidaa sidii dab kacay. dadku hadda waxay u baahan yihiin rajo, wax kasta oo ay tahayna diyaar ayay u yihiin inay rumaystaan. shirka qiraalka ee dhulka hoostiisa waxaa ka soo baxaya gabdhaha gudoomiyaha xerada. mid waxay jacayl waali ah u haysaa wadaadka xerada, halka midda kalena ay indhaha ku haysato askarigeena naxariista badan ee Hawshan Liang. gabdhahan yaryar waxay u muuqdaan kuwa ku dhex nool duni riyo ah iyagoo aan dareensanayn in dunidii hore ay duntay. laakiin sheekadeenna maanta jacayl waqti looma hayo ee aan u gudubno meesha dhiiggu ku daadanayo. dhinaca kale sarkaalka adag ee Yudogo ayaa codsaday inuu bannaanka u baxo. wuxuu helay calaamad muujinaysa askari ka tirsanaa guutada tukaha oo horay u baxsaday. laakiin hogaamiye Barilayn ayaa ka biyo diidan. ma mudan tahay inaan kooxdan halis gelino hal qof dardiis, ayuu yidhi. maahan waqtigii loo naxariisan lahaa hal qof halka boqolaal kale ay khatar ku jiraan. laakiin markii dambe waxaa soo baxday run naxdin leh. askarigaas ma uusan baxsan si uu u goosto, balse wuxuu u baxay si uu daawo ugu soo raadiyo saaxiibtiis oo u dhimanaysa xanuun daran. saaxiibtidii miskiinta ahayd markay ogaatay in ninkeedii uu naftiisa halis u geliyey iyada darteed waxay dareemtay dembi weyn. waxay go'aansatay inay nafta iska qaado oo ay isdaldasho iyadoo isticmaalaysa xadhig ay saqafka ku xirtay. laakiin si lama filaan ah waxaa soo gashay geesiyadda Inu. iyada oo aan ka labalabayn ayay soo dhex gashay, waxayna badbaadisay gabadhii oo markaas naftu ka sii socoto. Inu aad ayay u mashquulsan tahay maalmahan. waxay kala dhex gashay carruur dagaalamaya, waxay la dooday gudoomiyaha xerada, waxaana lagu eedeeyey inay dad u kaxaysay bannaanka oo ay halkaas ku dhinteen. wadaadka xerada ayaana dacwad ka gudbiyey isagoo yidhi waa iyada qofka keliya ee leh eedda dadkii la leeyahay. askarigii Hawshan Liang ayaa bilaabay inuu si qarsoodi ah u raaco Inu. wuxuu arkay iyadoo bisad yar quudinaysa. gabadhan ma xuma ayuu is yidhi, binu-aadanimada ayaa weli ku jirta. laakiin markii ay bannaanka u baxday si ay u soo eegto calaamadaha walaalkeed waxaa hortaagan gabadhii yarayd ee Silofa. ma rabtaa inaad ogaato halka uu walaalka joogo, ayay tiri Silofa iyadoo codkeedu uu yahay mid madow oo cabsi leh. markii ay Inu rabeen inay raacdo waxaa soo dhex galay Hawshan Liang. wuxuu dareemay in gabadhan yar gadaasheeda ay ka imaanayso awood aad u weyn oo naxdin leh. si lama filaan ah waxaa soo muuqatay Lara, hooyadii carqaladu ku dhacday. halkan waa meesha sirtu ka fashilmayso. gabadhan yar ee Silofa maahan mid caadi ah. waa isla ilmihii dhiigga madow iyo saliidda u ekaa ee Lara ay ku dhashay barafka dhexdiisa 1 sano ka hor. inkasta oo ay 1 sano uun dhalnayd, haddana waxay u kortay sidii qof weyn. jidhkeedii madow ee saliidda u ekaa hadda wuxuu ku jiraa gudaha, markay cadhootona ama awooddeeda isticmaasho ayuu dibadda u soo butaacayaa. waxay leedahay awood la mid ah tii Hiyansu, balse iyadu waa mid ka sii naxdin badan. hooyo ma rumaysan kartaa waxaan noqday, ayay tiri Silofa iyadoo eegaysa Lara. Lara waxay dareemaysaa cabsi iyo jacayl isku dhex jira, laakiin waxay og tahay in gabadheedu ay tahay miino qarxi doonta oo adduunka baabiin karta. waxaa jira 2 sir oo waaweyn oo laga ogaaday gabadha yar ee Silofa. kow, awooddeedu waxay ku jirtaa calaacalaha gacmaheeda. taas darteed hooyadeed Lara waxay ku qasabtay inay xirato gloves xitaa marka ay xadhig ku xirayso gacmaha gabadha si ay u maamusho. wiilka miskiinka ah ee Aday wuxuu taabtay xadhig madow oo ku yaal gacanta gabadha iyadoo hurudda, waana sababta uu u bedelmay, balse uusan bahal buuxa u noqon. 2, Silofa waxay u soo dhawaatay xerada militariga uun si ay u raadiso walaalkeed. ma walaalkii Inu baa mise waa Hiyansu? jawaabtaas dib ayaan ka ogaan doonaa. dhanka kale geesiyadda Inu iyo askari Hawshan Liang ayaa bannaanka xerada u cararay. laakiin masiibo ayaa ku habsatay, waxay ku dhaceen god dheer oo dabin ah. markay islahaayeen kor u soo baxa waxaa dushiisa ka soo muuqday nin wejiga u duuban oo xiran dharka geedaha u eg. ninkani waa Buhmo, isla ninkii sanad ka hor xerada laga eriyey isagoo diiday inuu qorigiisa dhiibo. Buhmo ma lahan naxariis. isagoo eegaya labadan iscaawinaya ayuu haraati xooggan ku dhuftay Hawshan Liang, wuxuuna labadoodaba dib ugu celiyey godka gunta hoose ee ay ka buuxaan mishaaro iyo qoryo fiiqan. godkani waa dabin dilaa ah.
hawshaan Liang lugta ayaa ka jabtay labadooduna waxay ku dhex godoomeen gudcurka iyo cabsida iyagoo sugaya cid badbaadisa laakiin xerada gudaheeda xaaladdu way ka sii daraysaa dhakhtarka waalan ee Dasami ayaa ogaaday sirta wiilka Aday wuxuu arkay in dhiigga wiilku isbedelay laakiin jidhkiisu uu weli binu aadam yahay dhakhtarku wuxuu go'aansaday inuu tijaabo naxdin leh ku sameeyo wuxuu u geeyey hooyadiis oo qabta cudurka kansarka hooyadu markay bahalka noqotay cudurkii wuu ka bogsaday ilkahiidii way u soo baxeen markii Aday uu arkay hooyadiis wuxuu sameeyey ficil maskaxda ka baxsan wuxuu soo qaatay sunta beeraha wuxuuna ku qasbay hooyadiis inay cabto haddii aad dhimato mar dambe ma xanuunsanaysid hooyo ayuu yidhi isagoo ooyaya laakiin hooyadu ma dhiman waayo bahalnimada dhexdeeda ku jirta ayaa ka xoog badan sun kasta Aday wuxuu galay waali wuxuuna bilaabay inuu hooyadiis u garaaco si arxan darro ah dhanka kale hogaamiyaha guutada tukaha ee Barry Lane ayaa isna dhibaato ku dhex jira sanka ayaa dhiig ka soo butaacay wuu isbedelay dhakhtar Dasami ayaa ogaaday sirtiisa labadoodu waxay galeen heshiis madow dhakhtarku wuxuu ballan qaaday inuu Barry Lane ka caawiyo inuu noqdo isbedelayaal gaar ah oo aan miyirka waayin bedelkeedana Barry Lane waa inuu dhakhtarka ka saaraa xerada subaxnimadii dambe waxaa la ogaaday in 4 qof ay ka maqan yihiin xerada labada askari ee basaaska ahaa iyo labadii kale ee godka ku godoonsan militarigu waxay bilaabeen baaritaan weyn iyagoo ka baqaya in jid qarsoon uu jiro isla xilligaas sarkaalka Yudogo wuxuu helay calaamad muujinaysa askarigii baxsadka ahaa ee uu raadinayay wuxuuna go'aansaday inuu bannaanka u baxo gabadha yar ee Silofa iyo hooyadeed Lara waxay ku nool yihiin doon dhextaal biyaha laakiin xiriirkoodu waa mid madow mid waa hooyo binu aadam ah oo cabsanaysa midna waa gabadh bahal ah oo dareemaysa in la dhibaataynayo Silofa oo caraysan ayaa ka carartay doontii waxayna go'aansaday inay raadiso walaalkeed oo ay aaminsan tahay inuu yahay qofka kaliya ee fahmi kara masiibadu hadda waxay ku sii dhawaanaysaa meeshii ugu dambaysay aan ku laabano sirtii dhalashada ee barafka maalintii ay Lara ku dhashay barafka dhexdiisa waxay aragtay gabadheeda yar ee Silofa oo cunaysa xudunteedii waxay qarka u saarnayd inay gabadha disho cabsi awgeed laakiin hooyanimo ayaa ka xoog batay isla xilligaas waxaa goobta soo maray Hiyan Su oo iska soo saaray xabsigii militariga Lara waxay gabadhii u dhiibtay Hiyan Su si uu u xanaaneeyo mid waa soo tuuray midna waa soo dhaweeyey muddo yar kadib koox budhcad ah ayaa weeraray meeshii ay ku dhumanayeen Silofa oo yarayd ayaa qabsatay cadhawaali ah waxayna hal ilbiriqsi gudaheed ku dishay dhammaan budhcadii jidhkeeduna wuxuu u koray sidii qof weyn Lara markay aragtay gabadheeda oo bahalnimadu ka xoog badatay waxay gacanteeda ku goysay nabar weyn waxayna ku shubtay khad si ay calaamad ugu dhigto xitaa haddii aad bahal noqoto calaamadan ayaan kugu aqoonsan doonaa ayay tiri iyadoo indhaha ay oohin ka buuxdo waqtiga hadda la joogo Hiyan Su ayaa badbaadiyey inuu laakiin ma rabo inuu la hadlo inuu ma quusan waxayna raacday tallaabo kasta oo uu qaado dhanka kale askari Hao Shan Liang ayaa ku dhacay dabin kadib markii uu cunay boqosha dilaa ah jidhkiisa waxaa ka soo baxay xumbo cad wuxuuna qarka u saarnaa dhimasho laakiin ninka qalabsan ee buhmo ayaa si lama filaan ah u badbaadiyey isagoo siiyey geedo yaryar oo daawo ah xaaladdu waxay sii xumaatay markii Hiyan Su uu ogaaday in Lara ay ku godoonsan tahay doon gubanaysa wuxuu u soo gurmaday si hilaac ah wuxuuna ka soo saaray dabka dhexdiisa wuxuu u kaxaystay dhanka isbitaal duugoobay isagoo rajaynaya inuu ka helo mishiinka oksijiinta laakiin isbitaalkaas maahan mid ammaan ah dhanka xerada militariga sarkaalka Yudogo wuxuu helay calaamad muujinaysa saaxiibkiisii baxsadka ahaa wuxuuna go'aansaday inuu u aado saldhigga Bamdobayse laakiin dhakhtarkii waalnaa ee Dasami ayaa raacay dhakhtarku intii uu dhexda ku jiray wuxuu helay unug weyn oo dusha sare ka soo lalmada wuxuuna bilaabay inuu ka jarto qaybo yaryar si uu baaro ficilkaas wuxuu soo jiitay bahalo aad u badan oo militarigii dhexda u galay gudaha saldhigga Bamdobayse Yudogo wuxuu kula kulmay gabadh yar oo dhar buluug ah xiran gabadhan waxay sheegtay inay binu aadam tahay oo ay halkaas ku dhuumaysay 1 sano laakiin dhab ahaantii waa dabin naxdin leh gabadhan iyo nin muruqyo weyn leh ayaa ah isbedelayaal cusub oo raba inay askarta militariga u bedelaan bahalo ay iyagu maamulaan waqtigii binu aadamka waa dhammaaday hadda waa waqtigii isbedelayaasha cusub ayay ku yiraahdeen askartii ay dabin qaadeen dhanka kale xerada dhexdeeda hogaamiye Barry Lane ayaa ku dhacay dabin kale sanka ayaa dhiig ka soo butaacay militariguna waxay rabaan inay baaritaan ku sameeyaan laakiin Banjang gudoomiyaha xerada ayaa fowdo ka kicisay dhismaha waxayna damisay korontadii si ay u badbaadiso ninkeedii bahalka ahaa ee ay ku qarisay qolka qarsoodiga ah si ay ninkeeda u quudiso waxay qabatay wiil arday ah oo isbedelay waxayna ku tuurtay qolkaas mugdiga ah si ninkeeda bahalka ah uu cuno qaylada wiilkaas miskiinka ah ayaa gilgishay dhismaha masiibaduna hadda waxay maraysaa heer aan la xakamayn karin hogaamiye Barry Lane wuxuu aaminsan yahay inuu isagu yahay qofka kaliya ee isbedelaya ee ku dhex jira xerada cadaadiska ayaa ku sii kordhaya isbedelkiisuna wuxuu marayaa meel khatar ah inkasta oo uu dareemayo inuu bahal u bedelmayo haddana wuxuu isku dayayaa inuu baaritaan sameeyo wuxuu ogaaday in korontada la damiyey aysan ahayn shil balse ay tahay shirqool meel u dhow meeshii korontada laga damiyey wuxuu ka helay faraantigii gabadha ay dhashay Banjang gudoomiyaha xerada markii uu Barry Lane horgeystay faraantigaas Banjang waxay muujisay arxan darro aan hore loo arag si ay sirtu u qarsoonaato waxay u dhiibtay gabadheeda militariga iyadoo leh anigu waxba kama ogi haddii ay dambiile tahayna xira dhanka kale Hiyan Su wuxuu si degdeg ah u gaaray isbitaalka isagoo dhabarka ku xambaarsan Lara wuxuu rajaynayay inuu helo oksijiin uu ku badbaadiyo nolosheeda laakiin markii uu furay haantii oksijiinta waa ay marnayd waxaa durbadiiba qalbigiisa ka soo kacday rajo beel iyo naxdin aan la qiyaasi karin wuxuu go'aansaday inuu keeno gabadha yar ee Silofa si ay hooyadeed u aragto markii ugu dambaysay Lara iyadoo nafla caari ah ayay soo miirsatay indhaheeda waxaa ka buuxay raaligelin ay u fidinayso gabadheeda waxay si adag u qabatay gacanta Silofa laakiin waxay ilowday hal shay in taabashada gabadhaas ay qofka binu aadamka ah u bedelayso bahal inkasta oo Lara ay isku dayday inay istisho ka hor intaanay bahal noqon haddana way soo daahday jidhkooda waxaa bilaabay inay ku faafto dhiig iyo saliid madow Hiyan Su wuxuu isku dayay inuu awoodiisa isticmaalo si uu u badbaadiyo nuxurka binu aadamnimo ee ku dhex jira Lara wuxuu dhex galay xusuusteeda laakiin wuxuu ku dhex arkay oo kaliya xanuun cabsi iyo riyooyin madow oo ku saabsan gabadheeda Hiyan Su isagoo ooyaya ayuu go'aansaday inuu soo afjaro xanuunkaas wuxuu gacantiisa ku dilay Lara si uu uga badbaadiyo inay noqoto bahal aan miir lahayn kani wuxuu ahaa gumaad naxariis leh laakiin wuxuu burburiyey qalbiga Hiyan Su kadib geeridii Lara Hiyan Su jidhkiisii wuxuu u adkaysan waayey xanuunka maskaxda wuxuuna galay kooma laakiin markii uu soo miirsaday ma uusan ahayn Hiyan Su gii naxariista badnaa waxaa soo kacay Hiyan Su gamadow oo ah qaybtiisa shaydaanka ah
waqtigii naxariista waa dhammaaday ayuu yidhi isagoo u dhoola caddaynaya si naxdin leh gabadha inuu oo dhinac fadhida dhammaadkii qaybtan kamaradu waxay noo kaxaysay burburkii dhismaha Greenhome halkaas waxaa yaalay unug weyn oo gariiraya si lama filaan ah waxaa unugaas ka soo baxay qof qaawan oo maqaarkiisu uu nadiif yahay waa Ian Hiyo ninkii muraayadaha gashan wuxuu ka soo laabtay dhimashadii laakiin ma lahan xusuus ma lahan naxariis mana lahan damac wuxuu u dhashay sidii binu aadam cusub oo aan dareen lahayn maanta halkan ayuu ku soo dhammaaday filimkii Sweet Home Season 2 laakiin ha welwelin waxaa soo socda Season 3 oo aad u xiiso badan si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada channelka subscribe saar muuqaalka like saar fikirkaaga nala wadaag waa inuu mar kale iyo muuqaal kale nabadgelyo